asalaamu calaykum waan ku salaamay daawada meel walbo aad joogtid kusoo dhawow qaybta shanaad ee sheekooyinka ku saabsan fadeexooyinkii hay-adda sirdoonka ee muusaad. qaybihii hore waxaan filayaa inaad ku ogaateen fadeexooyin kala duwan oo hay-adda ku dhacay. qaybtan waxaan ku eegi doonaa fadeexadii saddexaad, jaajuuskii lootis iyo mashruucii sawaariikhda. kadib dagaalkii Suweys ee dhacay sanadkii 1956 Masar waxay dagaalkaasi ka soo faraxalatay iyada oo xoogan oona ka guuleysatay dowladihii gaashaanbuurta cadawga ku ahaa ee ay ka mid ahaayeen Israa'iil, Ingiriiska, Faransiiska, kuwaas oo u arkaya kanaalka Suweys ee Masar oo ku yaalo muhiimkana uu ahaa isu socodka ganacsiga ee adduunka. Jamaal Cabdinaasir waqtigaasi wuxuu ahaa madaxweyne dhalinyaro ah oo kaliya ku jira da'da afartanaadka, sidaas oo ay tahayna wuxuu muddo yar uu ku guuleystay inuu Masar ka dhigo dowlad awood xoogan, sidoo kalena Yuhuudda, Faransiiska iyo Israa'iil oo jab xoogan uu u gaarsiiyo, ha ahaato mid military ama mid siyaasadeedba. haddaba kadib guulihii uu gaaray dagaalkaasi marka laga yimaado Jamaal Cabdinaasir ayaa xilligaana qorshaha waxa uu ku darsaday oo uu bilaabay inuu Masar u sameeyo gantaalo sawaariikh kuwaas oo lagu xoojinayo awoodda Masar iyo in Masar laga dhigo mid ka mid ah dowladaha ugu horumarsan militariga caalamka. sidoo kale Jamaal Cabdinaasir waxa uu ihtimaam weyn uu siin jiray dhanka teknoolajiyadda iyo sidoo kale in la soo saaro aqoon-yahano wax ku ool ah kuwaas oo Masar dhaqaajin kara, waxaana uu dhihi jiray oraahdiisa caanka ahayd: mas'alada ma ahan kaliya in aan ku guuleysano samaynta sawaariikhda iyo diyaaradaha, waxaa ka muhiimsan arrintaasi waxa ay tahay dhanka teknoolajiyadda. mustaqbalkana waxaa qasab nagu ah inaan Masaarida u suurtagelino inay bartaan teknoolajiyadaasi kuna takhasusaan. arrintaas ayaana xaggayga ka muhiimsan samaynta iyo soo saarista sawaariikhda iyo diyaaradaha. sida hadalkiisa laga dheehan karayana, halkii aad iibsan lahayd gantaal ama diyaarad waxaa muhiimsan in aad haysato aqoon-yahano cilmigaasi ku takhasusay, waayo hadhow toole isaga ayaa kuu suurtagelin karaya qofka bartay inuu si fudud uu kugu sameeyo wax walba oo aad doonto. sidaasi awgeed Jamaal Cabdinaasir wuxuu muhiim u arkayay inuu asalka uu soo iibsado halkii faraca uu iibsan lahaa, taasi oo ka dhigan in Masar ay yeelato aqoon-yahanadii hubka samayn lahayd halkii Masar ay hubka ay soo iibsan lahayd. sanadkii 1957 Masar waxay lahayd warshado xadidan kuwaasi oo sameeyay qaar ka mid ah saanadihii militariga. sidaasi awgeed Jamaal Cabdinaasir wuxuu garowsaday in uu warshadahaasi yaryar uu u bedelo kuwo waaweyn, hase yeeshee samaynta agabka militari ee waaweyn sida diyaaradaha, taangiyada, sawaariikhda iyo waxyaabaha la midka ah waxay u baahan yihiin maalgelin culus oo qarash badan ayaa la iska rabaa iyo dad hawshaasi khibrad iyo aqoon u leh. intaasina waxaa sii dheer in mashruucaasi u ahaado mid sir ah oo qasoon, isla markaana aysan ogaan karin dowladaha cadowgaada si aysan ula socon hubka aad samaysatay iyo awooddaada military. haddaba si mashruucani loo hirgeliyo oo suurtagal ay u noqoto samaynta diyaaradaha iyo gantaalada, Masar waxay kaashatay dowladii Masar nin lagu magacaabayo Wolfgang Gebelius, kaasi oo ahaan jiray gacanyarihii iyo ninkii gacanta midig u ahaa Liebron oo ahaa ninkii aasaasay mashruuca sawaariikhda Jarmalka una sameeyay dowladda Jarmalka. cadowgaada cadowgiisa waa saaxiibkaaga waa taatika iyo qaacido mar walba shaqaysa. haddaba maadaama Jarmalka iyo Yuhuudda cadowtooyo qoto dheer ay ka dhaxaysay, wuxuu Jamaal Cabdinaasir aqoon-yahankii reer Jarmal u arkay fursad muhiim u ahayd dalkiisa. sidaasi daraadeed ayuuna mashaariicdiisa ugu tiirsanaadeen si ay uga caawiyaan samaysashada hub iyaga u gaara iyo in sidoo kale khibradooda ay ku biiriyaan aqoon-yahanada Masaarida. muddadaas ee Masar samaysa hubka sidoo kalena waxay taaka ula socdeen dhaqdhaqaaqa cadowgooda Yuhuudda iyo howlaha ay dhankooda ku samaysanayeen gantaalada. waqtigaasi Israa'iil waxay ku guuleysatay inay dhammaystirto bacriminta iyo samaynta nuclear-keeda, iyadoo isla waqtigaasi heshiiskii iskaashi ay la gashay Faransiiska uu midho dhal noqday. wuxuuna ahaa heshiis iskaashi oo dhanka gantaalada dhulka ah, iyadoona soo saartay gantaaladii Shaafeed 1 iyo sidoo kale 2. Masar waxay ka warqabtay lana socotay Israa'iil in laba mashruuc oo muhiim ay u hirgaleen. midda koowaadna ay tahay samaysashada hubka nuclear-ka, midka labaadna uu ahaa samaynta gantaalada qaadi lahaa nuclear-kaasi. waxaana sirdoonkii Masar ay ahaayeen kuwa tallaabo kasta iyo dhaqdhaqaaq kasta oo cadowgooda uu qaado la socday, maamulka sare ee dowladana u gudbinayay. sida ay Masar ula socotay dhaqdhaqaaqa gudaha Israa'iil, si la midna Yuhuudda dhankooda waxay ula socdeen dhaqdhaqaaqa gudaha Masaarida, waxaana muusaadka ay ahaayeen kuwa aad u daneynaya inay ogaadaan wax walba oo ku saabsan mashaariicda Masar ee samaynta gantaalada iyo diyaaradahaba, iyadoo isla waqtigaasina ay wadeen qorshihii ay ku fashali lahaayeen ama ay ku qarbudi lahaayeen mashaariicda ee Masar ay ugu dhisaysa diyaarado dagaalna ay ku samaysanayso.
habka kaliya ee muusaadka u suurtagelin karaysa arrintaasina waxay ahayd inay soo dirsadaan jaajuuska u filiyo howlgalladooda iyaga oo howshaani cusub ee gantaalada iyo diyaaradahaba masar u xilsaaray una soo dirsaday jaajuuskii lotis magaciisa oo dhammaystiran wuxuu ahaa johann wolfgang segmund lotis. wuxuu ku dhashay gudaha dalka Jarmalka sanadkii 1921 waxaana uu haystay diinta Yahuudda. Lotis wuxuu ahaa joog ahaan mid aad u dheer, tima ashqaran ama dahabiya leh, indhihiisa waxay ahaayeen buluug. Aabihii iyo hooyadiina waxay ka shaqayn jireen tiyaatarka iyada oo howlahooda aad ay ugu mashquulsanaayeen ilaa xitaa ay iloobeen in wiilkooda ay gudaan maadaama diinta Yahuudda ay qabta sida diinta Islaamka oo kale in la isgudo. sanadkii 1931 Lotis hooyadiis iyo aabihiis waa ay kala tageen oo waa ay sureen, kadibna hooyadiis ayaa isaga soo kaxaysatay iyada oo u qaxday dhanka iyo Falastiin. kadibna Lotis waxaa la geeyay iskuulka lagu magac daray Ben Shayman, waxaana halkaasi uu ka bartay cilmiga beeraha. waxaana ku xigay inuu ku biiray ciidankii Yahuudda isaga oo ka qayb galay dagaaladii labaad ee adduunka. dagaalkii labaad ee adduunka markii uu dhamaaday kadibna Lotis waxa uu ka qayb noqday howlgalladii qaxootiga Yahuudda lagu daabulay dhulkii Falastiin. kadib sanadkii 1948 markii Israa'iil ay cilaamisay qabashada dhulkii Falastiin, Lotis wuxuu noqday sargaal sare oo ka tirsan ciidanka difaaca Yahuudda. kadibna sanadkii 1956 ayaa jagadiisii sare loo qaaday xilli uu abaanduule ka ahaa ciidanka Yahuudda ee dagaalka kula jiray Falastiin. kadib markii uu dhamaaday dagaalkii Suwayskaasi oo Masar ay ku guuleysatay, Lotis waxaa loo gacan haatiyay dhanka iyo Muusaad si uu uga noqdo jaajuus iyaga ka tirsan oo howlgalladooda fuliya. waxaana horey aan idinkugu sheegnay in Lotis tima cad uu lahaa isaga oo muuqaal Yurubiyaana u ekaa, sidoo kalena ma uusan gudnayn oo Yahuudda gudan lama uusan mid ahayn. si lamid ah waxa uu ku hadli jiray dhowr luqadood oo ay ka mid ahaayeen Ingiriiska, Jarmalka, Carabiga iyo Cibraaniga. intaasi waxaa u sii dheeraa inuu sargaal militari ahaa oo horey tababar adag oo u soo qaatay, sidoo kalena ciidanka difaaca Yahuudda uu ka mid ahaa. haddaba arrimahaas oo isbiirsaday Yahuudda waxay u ahayd fursad kale oo muhiim oo looga faa'iideysan karay in laga dhigo jaajuus kadibna lagu beero Masar ama Syria oo ay ahaayeen laba dowladood oo xilligaasi Yahuudda dagaal adag kula jirtay. waxaana Muusaad xilligaasi ninkaani u arkeen in qorshahooda uu ku habboon yahay. Muusaadkii markaasi waxay ku fakareen inay erga iyaga matala sidoo kalena ka mid ah jaajuusiintooda kuwa ugu aadka ugu fiican loo diro gudaha dalka Masar iyo sidoo kale Syria si ay ugu soo gudbiyaan dhammaan sirahooda iyo macluumaadka ay aadka ugu baahan yihiin dhanka istiraatiijiyadda iyo sidoo kale dhanka militariga dowladahaas. Muusaadkii markii hore waxay ku fakarayeen inay Eli Cohen ay u diraan gudaha dalka Masar maadaama uu ku barbaaray waxna uu ku soo bartay Masar ka hor inta uusan tagin dagaalkii Suwaysna uusan dhicin sanadkii 1956 isagoo aaday dhanka iyo dhulka Falastiin ee Israa'iil xoog ay ku haysato. balse Muusaad fikradaasi waa ay ka laabteen, waxaana sabab u ahaa in Eli Cohen 2 jeer horey Masar loogu xiray, sidoo kalena sawiradiisa gacanta ay ku hayaan ciidanka ammaanka ee Masaarida. waxaa sidoo kale suurtagal u noqon weysa qof sawiro iyo diiwaan laga hayo in basaas ahaan loogu diro gudaha dalka Masar. sidaasi aaweed Muusaadkii waxay go'aansadeen in ay Masar ay u diraan dooqoodii labaad ama doorashadoodii labaad oo ay haysteen kaasi oo ahaa Johann Lotis. waxaana in halkaasi loo diray sabab u ahayd in muuqaalkiisa Yurubiyaan uu u eg yahay gaar ahaan Jarmalka, sidoo kalena uu ahaa aqoon-yahan aad ugu xeer leer luqadda Jarmalkana yaqaano. waxaana sidoo kale idinla wadaagnay in Jarmalka iyo Masar iskaashi xoogan uu ka dhexeeyo. sidaasi aaweed Johann Lotis wuxuu ahaa qofka ugu habboonaa ee Muusaadka halkaasi uga soo warbixin karayay maadaama uu haysto fursad uu ugu dhowaan karayo jaaliyadda Jarmalka ee Masar joogtay. qorshuhu wuxuu ahaa in jaaliyadda Jarmalka uu ka agdhawaado kadibna Lotis ay isbartaan shaqaalaha iyo aqoon-yahanada Jarmalka ee ku howlanaa samaynta gantaalada iyo diyaaradaha Masar, halkaasna uu xogta qarsoon ee Masar uu kala socdo si uu ugu gudbiyo macluumaad walba uu helo sirdoonkii Muusaad. haddaba Master Lotis si loogu beero gudaha dalkaasi Masar waxaa loo diray dalka Jarmalka, halkaasoo sirdoonkii Muusaadka heshiis qarsoodi ah ay kula galeen sargaal ka tirsanaa sirdoonkii West Germany si Lotis loogu sameeyo baasaboor Jarmal ah loogana dhigo muwaadin asalkiisa Jarmal uu yahay. markii hawshii baasaboorka iyo waraaqadihii dhalashada lagu guuleystay, Johann Lotis waxaa loo diray duleedka magaalada Berlin si halkaasi tababar adag oo dhanka basaasnimada ah loogu siiyo. waxaana sidoo kale inta lagu wareejiyay dhammaan waraaqadaha qorshaha howlgalka cusub ee dalka Masar.
maxamuud muraad oo ah wariyaha qore buugga jaajuus baa qaahiro jooga, kaasi oo uga hadlaya jawaasiista Muusaad ay usoo diraan gudaha dalka Masar si ay dhibaato uga geystaan howlihii warshadaynta gantaalada iyo diyaaradaha dowladda Masar, ayaa waxa uu sheegay in John Lotis uu usoo gaaray magaalada Alexandria 7 bishii January sanadkii 1961 si uu Muusaadka xog ula wadaago. waxaa la sheegaa inuu dhanka badda ka soo galay kadibna gaari uu u soo raacay magaalada Alexandria isagoo u jihaysta dhanka iyo magaalada caasimadda ee Qaahira. Lotis ayaa magaalada Qaahira kaga degay xaafadda lagu magacaabaya Garden City, waxaana uu ka deganaa hotel lagu magacaabaya Al Zahra. Lotis markii Qaahira uu tagayna waxa uu watay system yar oo loogu talagalay in lagu wada xiriiro, sidoo kalena macluumaadka iyo xogta lagu gudbiyo. wuxuuna ugu qarsanaa kabaha nooca fardafuulka ah oo loogu talagalay kuwaas oo watay, sidoo kalena wuxuu watay warqad fariin dahsoon ahayd oo xilliyada ballanta ee Paris ay ku qornayd. Lotis markii uu gaaray magaalada Qaahira markii sii hore wuxuu bilaabay inuu magaalada uu ku dhex wareego si uu taako u kala barto. kadibna wuxuu ogaaday goobta inta badan ay ku kulmaan jaaliyadaha Jarmalka ee Qaahira, waana kalaabka Al Jazeera ee lagu caweyn jiray. Lotis wuxuu iska dhigay nin fardafuul ah oo aad u yaqaana faras fuulidda, kadibna wuxuu kalaabkii Al Jazeera ku bartay in badan oo ka mid ah jaaliyadihii Jarmalka ee halkaasi caweysinka u aadi jiray. si la mid ahna wuxuu goobtaasi ku bartay qaar ka mid ah muwaadiniinta Masaarida ee fardafuulka aad u jeclaa. Lotis tallaabadiisii koowaad waxay ahayd inuu asxaab cusub uu barto oo si fiican u dhexgalay isagoo iska dhigay nin milyaneer ah oo Jarmal ah, sidoo kalena fardafuulka jecelkaasi oo doonaya inuu Masar uu ka dhisay xero lagu tababarayo fardaha, gaar ahaanna kuwa asalkooda Carabta uu yahay. kadib markii uu muddo 5 isbuuc uu jooga magaalada Qaahira, Lotis waxa uu suurto gashay inuu halkaasi uu ku yeesho xiriiro kala duwan, sidoo kalena uu toos u saldhigto howshii basaasnimadana uu bilaabo, isagoo xog walba uu helo u gudbinayo saraakiishii sirdoonka Yahuudda ee ku sugnaa magaalada Paris. 15 bishii Febraayo sanadkii 1961 Lotis wuxuu safar ku tagay magaalada Tel Aviv isagoo magaalooyin kala sii maray, waxaana uu dhowr jeer uu la kulmay saraakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka ee Muusaad, waxaana ugu warbixiyay macluumaadkii uu helay muddadii 5 toddobaad ahayd uu jooga magaalada Qaahira. Muusaadkii ayaa markaasi waxay u sheegeen in xilligan wixii ka dambeeya jaajuuskooda u fadhiya magaalada Qaahira uu yahay oo halkaas ay xaruntiisa ay noqon doonto, isagoo ku gambanaya mashruuca fardaha ee Masar, waxaanay ku amreen inuu Qaahiro dib ugu laabto, balse intuusan ka tagin ka hor muddo 2 toddobaad ayuu fasax wuxuu ku qaadanayaa meel kale, waxaana kadib la sheegay inuu bilaabayo howlgalkiisii Masar. Lotis markaasi kadib wuxuu u safray magaalada Paris, waxaana uu sii gudbay magaalada Munich ee dalka Jarmalka, balse muddadii Munich safarka uu ku ahaa ayaa tareenkii uu saarnaa wuxuu kula kulmay gabar aad u qurux badan, taasi oo fadhiday kursigii tareenka uu ka saarnaa mid ka soo horjeeday. gabadhii ayuu halkii ku bartay isagoona isbaray, waxaana ay magaceedii ugu sheegtay Clara Norman Marta, jinsiyadeedana ay tahay Jarmal. waxaa sidoo kale uu ogaaday in ay degan tahay magaalada Munich, markaas ayuu ku casuumay inay habeen ay wada casheeyaan si ay isbarashay u aadaan. Clara way ka ogolaatay, kadibna waxaa dhacday in muddadii Lotis fasax uu ku joogo Yurub in isaga iyo Clara xiriir adag uu dhex maro, kadibna wuxuu go'aansaday in uu guursado, isaga oo ku guursaday magacii cusbaa ee loo sameeyay markii jaajuuska uu noqday, wuxuuna doonayay inuu gabadhaani gabaad ay u noqoto si sheekadiisa xaqiiqo ay ugu ekaato. Lotis qorshihiisii ayuu u sheegay saraakiishii Muusaad, waana ay ka ogolaadeen, inkastoo horey uu qabay gabar Israa'iiliyad ah oo lagu magacaabayo Rafika, sidoo kalena u dhashay 2 carruur ah ka hor intuusan bilaaban howlgalkii Masar. Lotisna wuxuu Qaahire dib ugu soo laabtay 30 Juun sanadkii 1961, muddo toddobaad kadibna Qaahire waxaa gaartay xaaskiisii cusbeed ee Clara. wariye Maxamuud Muraad oo buuggaani qoray wuxuu buuggiisa ku xusay in Lotis markii Qaahire u yimid inuu xaaskiisii cusbeed uga warbixiyay qorshihiisii Qaahire uu joogay iyo howshii basaasnimo ee uu ka waday Qaahira. halkaa inoo joogtay qaybtan fadeexooyinkii hay'adda sirdoonka Muusaad. qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo.